leeyahay waana maalintii ugu dambeysay ee ciid weynta ama ciidul adxa ciid wanaagsanna waan idin leeyahay waa labadii ciidood oo isku soo aaday maanta muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago wiil Soomaali ah oo loo soo qabtay dilkii wiilkii kale ee Soomaaliga ah ee maalintii ciidda ahayd lagu dilay magaalada Shakopee ee gobolka Minnesota haddaba wiilkaasi weli wax dacwada laguma soo oogin laakiin hadda waa uu xiran yahay waan idinla wadaagayaa sidoo kalena waxaa jirta in wiilal kale oo Soomaali ah oo ilaa iyo 5 ah loo soo xiray weerar ay geysteen afartii bishan aynu ku jirno isla markaana ay ka geysteen downtownka magaalada St Paul laba kooxood oo gaangisa oo Soomaali ah ayaa gacanta isula tagay kadibna isxabadeeyay laba qof ayaa dhaawacantay boolisku ilaa iyo inta muddo 2 toddobaad ka badan baaritaan ayay wadeen shalay ayayna soo qabteen hub sharci darro oo ay haysteen dhalinyaradaasi Soomaalida iyo iyagiiba qaar ka midana dacwado ayaa lagu soo oogay haddaba booliska oo arrimahaasi ka warbixinayana sidoo kale waan idinla wadaagaya hadii shalay ahayd waxaan idin sheegay in loo soo xiray qof boolisku wali aysan shaacin dilka wiilkii Soomaaliga ahaa ee Khalid Cabdi Ibrahim oo 26 jir ahaa oo maalintii ciidda ahayd ee Arbacadii markii salaada la tukaday kadib ciidda lagu dilay meel lagu tukanayay oo fagaaro ahayd isla markaana Canterbury Park Expo la yiraahdo waxa la sheegay inay wiil kala murmeen kadibna risaas uu ku furay isagoo dhaawacan isbitaalka loola cararay oo halkaasi uu ku geeriyooday haddaba website-ka booliska ee Scott County ayaa markii aan galay waxa aan ku arkay in wiilka Soomaaliga ah ee loo soo qabtay dilka wiilkaasi kale ee Soomaaliga ah magaciisa la yiraahdo Raage Maxamed Cabdirasaaq oo 28 jir ah isla markaana wali dacwado lagu soo oogin oo isniinta ayaa la filayaa in dacwado lagu soo ogo laakiin website-ka booliska markaad eegto waxa ku qoran in uu ku eedeysan yahay dil waliba heerkiisu yahay midka koobaad isla markaana dil la soo qorsheeyo uu ahaa marka kulay ilaa ay hadda boolisku ma aysan soo bandhigin wareysiga ay la yeesheen wiilkan eedeysanaha oo dilka ayna Khalid Cabdi Ibrahim ku eedeysan oo la soo qabtay in uu wareysi siiyay sababta uu ku dilay maxay ahayd maxariir baa ka dhaxeeyay maxay ku murmeen ilaa ay hadda lama ogo laakiin sida muuqanaysa isniinta ayaa la filayaa in dacwado lagu soo ogo laakiin hadda waa uu xiran yahay magaciisana waxa la yiraahdaa Raage Maxamed Cabdirasaaq ayaa la yiraahdaa wiilka loo soo qabtay dilka oo ku eedeysan dilka Khalid Cabdi Ibrahim wax faahfaahin oo dheeraadana laga mahayo wiilkan la dilay wiil arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa ayuu ahaa oo la yaqiinay isla markaana waliba ilmihiisii ugu horeeyay ayuu sugay oo dhawaan ayuu guursado xaaskiisa uur ayay lahayd wararka qaar waxay sheegayaan labadan dhalinyarada inay is yaqaaneen xitaa xaasaskoodu ay uur lahaayeen oo isla socdeen oo ciidda ay isla soo aadeen laakiin lama garan karo waxyaabaha muranka ka dhaxdhaliyay isla markaana ku sababay in Raage Maxamed Cabdirasaaq uu dilo Khalid Cabdi Ibrahim wixii warbixinaha ay ka soo kordhana sidoo kale ilaa isniinta hadii dacwada lagu soo ogo iyo boolisku faahfaahinada ay ka bixiyaan sababta dilkan ka dambeysayna waan idinla wadaagi doonaa hadii aan la idmo dhinaca kale gaangiska Soomaalida gobolka Minnesota aad ayay ugu soo badanayaan hadda waxaa dhacday in shalay booliska magaalada St Paul shir jaraa'id oo qabteen taliyaha booliska maayarka iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan dhinaca federaalka oo dhinaca hubka sharci darrada u qaabilsan waxay xaqiijiyeen in 5 dhalinyaro ah la soo xiray hub gaaraya ilaa iyo 7 la soo qabtay arrintan waxay daba socotay weerar dhacay afartii bishan May aynu ku jirno meel xaflad qalinjibin oo jaamacadda Metro State University-ga qalinjibin ay ku qabanayeen meesha la yiraahdo River Center oo ku taala downtownka St Paul ayaa risaas ay ka dhacday galinkii dambe ee afartii bishan aynu ku jirno ee May risaastaasi waxa la leeyahay 2 qof ayaa ku dhaawacantay maadaama dad fara badan ay goobta joogeenna kala carar ayaa ka dhacay marka hadii risaas ay dhacdo isbuurasho ayaa imaan karto dhaawac kale ayaa imaan karo marka boolisku ilaa intaasi kaamarooyinkii meesha ku xirnaa ayay dabagal ku hayeen oo muuqaaladii ayay dib u daawadeen shalay marka waxa la soo xiray 5 qof oo dhalinyaro Soomaali ah waxana baaritaan lagu sameeyay guryahooda oo ku kala yeelay kadib markii waaranti ay boolisku ay u jirteen Briar Lake, Lakeville, Minnetonka iyo waliba ayna Brooklyn Park ayaa baaritaanadan lagu sameeyay dhalinyarada la soo qabtay marka waa 5 saddex kamid dacwado ayaa lagu soo oogay mid kamidana lama shaacin dacwada ilaa ay hadda lagu soo oogayo midna waliba maba uusan qaan gaariba 18 ayuu ka yar yahay
oo waa la qariyay dacwadaha isaga lagu soo oogay marka dhalinyaradan waxa ku jirta xitaa mid kamid ah waa dadkii ku dhaawacmay maalintaasi ayaa dadka la soo xiray dhalinyarada la soo xiray kamid ah dhaawac ay wajiga ayuu ka gaaray sida aad aragtaan Sakariya Xaashi Saciid ayaa la yiraahdaa waa 21 jir isaga waxa lagu soo oogay weerar heerkiisu yahay midka labaad iyo waliba kicin qalalaaso ayaa lagu soo oogay waxa sidoo kale ku jira Umar Abdiwahaab Maxamed oo 19 jir isagana waxa lagu soo oogay weerar heerkiisu yahay midka koobaad weerar heerkiisu yahay midka labaad iyo waliba qalalaaso heerkeedu yahay midka labaad qofka saddexaadna waa Khalid Ali Maxamuud isagana waxa lagu soo oogay da'diisa lama sheegin weerar heerkiisu yahay midka labaad ayaa lagu soo oogay haddaba dhalinyaradan marka maxaa isku geeyay oo inay dagaalamaan oo hub ay isku adeegsadaan maxaa sababay boolisku waxay sheegeen dhalinyaradan waxay ka kala tirsanaayeen laba koox oo gaangi ah oo la kala yiraahdo Phil iyo Madi marka wadada labadeeda dhinac ay joogeen markii hore calaamadaha mid waxaan u nahay kooxaha gaangiska ku waliba waxay leeyihiin sign ama calaamad gooni ah oo lagu garto marka calaamadihii ay isku caayeen oo isku colaadiyeen markii hore waxa sababtay marka in ay isku yimaadaan kadibna gacanta ay isku la tagaan markaas kadibna rasaas la isku adeegsado marka afartii bish ay arintan dhacday laba qof ayaa rasaastaasi ku dhaawacantay marka oo mid kamid uu yahay Zakariya Xaashi Saciid oo 22 jir oo dhalinyarada la soo xiray kamid ah markaas kadib boolisku waxay bilaabeen in kaamarooyinkii meesha ku xirnaa ay dabagal ay ku sameeyaan waxa la arkay iyagoo boorsooyinka la soo baxaya isku ridaya ilaa iyo 13 waxa goobtii laga soo qaaday fooqa risaasta ayaa laga soo qaaday goobtii risaastu ay ka dhacday ilaa iyo 13 fooq oo kala duwan kaamarooyinkii markii dib loo eegayna wajiyadooda ayaa la arkay iyo qaabka hubka ay ula soo baxayeen waxa sidoo kale jirta wiilka 18 jirka ah oo ilaa hadda oo aan qaan gaarin oo dacwada aan lagu soo eegin waxa la arkay ee leeyahay Saciid walaalkiis isagoo wajiga feer uga dhufanaya waxana sidoo kalena dhaawac uu ka soo gaaray sinta ayaa sidoo kale la leeyahay marka boolisku waxay xaqiijiyeen hubka ay soo heleen oo ilaa iyo 7 ah in uu ku jiro mid federaal ahaan oo federally loo mamnuucay waa modified guns ayaa la yiraahdaa bastoolada ayaa waxa laga bedelayaa bastooladu kale ayay u dhacdaa qalab yar oo waxa jirto raqiis inta la soo iibsado lagu dhajiyo bastooladii sida AK camal ayay u dhacaysaa oo automatic ayay u dhacaysaa ama bas ayay u dhacaysaa federaal ahaan waa la mamnuucay hubkaasi sidaas darteed waxa lagu arkay qoryihii la soo qabtay mid noocaasi oo kala switch ayaa la yiraahdaa ama sidoo kale Aurosirna waa la yiraahdaa marka qaabkaasi ayaa loo bedelay waxana dawladda federaalka hay'adda u qaabilsan arintan oo la dagaalanto qamriga tubaakada iyo sidoo kale hubka sharci darrada iyo waxyaabaha qarxa ayaa iyagu waxay xaqiijiyeen in dacwada federaal ah laga yaabo in lagu soo ogo dhalinyaradan qaarkood kuwii hubkaasi bedelay oo maadaama la mamnuucay iyaguna bedelay haddaba marka dhalinyaradan sida muuqata marka dabagalkaasi dheeraadka ay boolisku ay ku sameeyeen maadaama labadaasi koox oo gaangiga ay ka tirsanaayeen dhalinyaradan waxa muuqanaysay in ay iscolaadiyeen kadib gacanaha la iskula tagay markii dambana in hub la iskula soo baxo ayay gaartay marka intooda badan saddexda qof ee dacwada lagu soo oogay maanta ayaa maxkamadda la soo taagay kuwa kalena waxa la filayaa iyagana in dacwadaha kala duwan lagu soo oogo haddaba waa kan taliyaha booliska ee magaalada St Paul Axel Henry oo shalay shirka jaraa'id oo xitaa maayarka magaalada St Paul ay goobjoog ka ahayd sheegay in arrimahan oo kale ay soo laablaabteen goobaha dadku ay ku badan yihiin in la isku rasaaseeyo isla markaana waxa uu sheegay inaysan u dul qaadan doonin wax weyn haddii aad meel kale ka timaado hubna alla timaado magaaladeena oo dhibaato aad ka geysato waan ku dabagaleynaa isla markaana waan ku soo qabanaynaa isagoo shirka jaraa'id ka hadlayayna sidan ayuu yiri The shooting that took place on that day was very atypical for our city. I want the community to know, and those who would do these kinds of crimes to know, that this response is not atypical. This is what you can expect when you commit crimes like this in St. Paul. We are going to track you down and we're going to hold you accountable for this. It's completely unacceptable. Prevention is always our gold medal. We want to prevent any of these things from happening. But if you're going to bring a gun into our city and you're going to shoot at people, we are going to hold you accountable. sidoo kale sarkaalka dawladda federaalka u qaabilsanaa dhinaca hubka sharci darrada ah ee la bedelay ayaa isaguna waxa uu sheegay in hubka ay soo heleen qori noocaasa oo la bedelay uu ku jiray isla markaana meeshii kali oo u dhici lahaa baas inuu u dhaco laga dhigay waxana uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid la mamnuucay waxa uu sheegay in marka dacwado lagu soo oogi doono qofkii iska lahaa qorigaasi oo dacwado federaal ah lagu soo oogi doono waa kan marka arrimahaasi ka hadlay
Among the firearms recovered this morning was at least one equipped with a machine gun conversion device. These devices are illegal under federal law, full stop. They are small, they are cheap, and they are designed to do one thing: turn a semi-automatic pistol into a weapon that can fire rapidly, continuously, and uncontrolled. They have no lawful purpose. When we recover one, it matters, because every one of those devices that comes off the street is one less opportunity for violence. ATF takes the legal modification and trafficking of firearms seriously, and we will pursue these cases aggressively. I met with the U.S. Attorney's Office this morning, and we are discussing potential federal charges that may result from this case. More of that to come. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo